mudane Axmed Cali Daahir xiriirlayaha guud ee qaranka ayaa shir jiraa'id maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uuna ka hadlay tallaabadii ay qaadeen laamaha ammaanka oo lagu aruurinayay hubka sharci darrada ah sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay tallaabadii ay ciidamada ammaanka ay ku xireen idaacadaha Shabeelle iyo Sky iyo in dib habeen lagu sameeyo xafiiska xeer ilaalinta qaranka in la dhiso guddiga adeega garsoorka dadka ka ganacsanaya dukumiintiyada been abuurka ee u sameynaya bulshada Soomaaliyeedna inay joojiyaan qof kastoo ammaanka dalka arqalad ku ah in tallaabo sharci ah laga qaadi doono mudane Axmed Cali Daahir xiriirlayaha guud ee qaranka ayaa ka warbixiyay sababihii loo xiray idaacadaha Shabeelle iyo Sky waxa kale oo jiray fal runtii hay'adaha ammaanku ay ku soo xireen idaacadda Shabeelle iyo Sky tallaabadaas tallaabo qaanuuni ah weeye oo hay'adaha sharcigu ay amarkaas bixiyeen falalka ay faraha kula jirtayna ummadda loo soo bandhigayaa inta badanna waa og yihiin ummaddu oo shalay iyo daraad iyo bilahan oo dhanba ayay ogaayeen ama ay maaragtay la socdeenba waxay ka qayb qaadanayeen dhiirigelin kicinta shacabka waxay xadgudubyo joogto ah oo aan kala har lahayn ay ku hayeen mas-uuliyiinta qaranka waxay aadeen been abuur ah mar walba ay ka sameynayeen mas-uuliyiinta qaranka waxay ka been sheegayeen howlgalkii ay ciidamada ammaanku ay sameeyeen iyo ciidamada amisoomba ee ku saabsanaa sugitaanka amniga iyo waxay ka been abuurteen awaamirtii la bixiyey ee dowladda iyo xukuumaddu ay ka bixisay ayagoo mar walba u dhigayay qaab mujtamaca lagu kicinayo mujtamaca lagu dagaal gelinayo mujtamaca looga horkeenayo xukuumadooda iyo sharcigaba inay u dhaqmaan qaab qabiili ah arrintaas ficlan arrin sharciga ku wanaagsanna ma aha arrin hay-ad ka shaqaysa warfaafinta ama wacyigelinta bulshada ku wanaagsanna ma aha waxaan u sheegaynaa wax walbaaba in ay xad leeyihiin waan ixtiraamaynaa xuquuqda ay leeyihiin hay-adaha muxuu ahaa ii sheegay qaabilsan warfaafinta hadday noqdaan telefishon hadday noqdaan idaacad hadday noqdaan jaraa'id hadday noqdaan websiteyo laakiin waxaad ogaataan sharciga kuu ogolaaday oo xorta kaaga dhigay in aad si xorriyada u shaqaysatid inuu asagina kuu ogolaanayo ama uu kuu diidaayo inaad xadgudub samayso haddaad marka tiraahdid jaanibka xorriyad baan haystaa kaliya intaad isticmaashid jaanibkii aad dembiga ka dhalanayena aada iska ilowdo oo waxaad rabto aada samayso sharcigu awood buu kuu siinayaa in laga hortago qadiyaddan ammaanka iyo qadiyadda ay ku dhex jirtay hay-addaas runtii waa arrin saameyn ballaaran ku leh national security-ga qaranka nabadgelyada guud ee qaranka amniga guud ee qaranka arrin saameyn weyn ku leh waayo kicin bulshada iyadoo qaab qabiil iyo qaab kooxaysi iyo qaab runtii aada u foolxun ay u dhigahayeen waajib ayaa naga saaran in aan ka hortagno wax alla wixii national security-ga ka hor imaanaya xiriirlayaha qaranka ayaa soo dhaweeyay howlgalka ciidamada ammaanka ay kula dagaalamayaan hubka sida sharci darrada ah loogu dhex wato magaalada Muqdisho waxa uuna tilmaamay in magaalada ay hub ku dhex wadan karaan oo kaliya dawladda waad la socoteen howlgalladii iska daba xigay ee magaalada Muqdisho lagu hayay ee lagu soo aruurinayay hub fara badan runtii qof kasta oo Soomaali ah oo arkana uu ka argagaxayay hubka intaa la eg in ay shakhsiyaad gacantooda ku jiro runtii aad baan ugu hambaleynaynaa howlgalkaas tallaabooyinkiisa sharci oo ku habboonna waa qaadaynaa waanan ku boorinaynaa hay-aduhu inay tallaabooyinkaas qaadaan maxaa yeelay haysashada hub waa sharci darro hub waxaa haysan kara oo keliya dowladda iyo ciddii ay urkusaysay wixii intaa ka soo haro waa sharci darro qof ku doodi karaa haba yaraatee wax sharci darraa ayaan haysanayaa haddii sharciga darrada la igu qabtana shaar qabiil baan gashanaya marxaladaas waan ka gudubnay
dowladnimo ayaa waddanka ka dhalatay. waxaan shacabka iyo dadweynaha iyo cid kastaba aan u sheegaynaa inay waajib tahay in dembiyada lagu galo hubka waa dembiyada ugu culculus ee qaranka ka dhaca. hubku waa inuu gacanta dowladda galaa. horeyna sharciga waddanka u yaalay oo xakamaynta hubka ah iyo cidda haysan kartaa sharci baa ka jira. faldembiyeedyo inay yihiin baa sharci ka qoran yahay. sharcigaasna waa jiraa oo muddo dheer ilaa 60meeyadii dowladda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed uu jiray oo dhan sharcigaas baa jira. wadciga cusub iyo axwaasha cusub oo hadda waddanka ku soo korodhay oo dhinac walba leh oo ka duwan oo sababay dagaalkii sokeeye oo ka duwan qaabkii markii hore loo dhiilgarayn karay ama loola falgali jiray. waxaa waajib noqotay in sharci la jaan qaadi kara loo sameeyo. sharcigaasna hadda golaha wasiiradu way approve gareeyeen oo way ansixiyeen. golaha shacabka iyo baarlamaanka ayuuna u gudbay. waxaan rajaynaynaa inay si degdeg ayagana ay u ansixiyaan, waayo waa sharci muhiim u ah dalka iyo dadkaba in hubka uu galo gacanta dowladda oo shakhsi uu gacantiisa ka baxo. cid alla ciddii hortaag ku samaysa arrintaasna waxaa loo aqoonsanayaa un qof diidan nidaamka iyo sharciga iyo dowladnimada. waajibaadkiisa shaqo oo ku habboonna waajibaadkiisa hay-adaha ku habboonna way qaadanayaan. waana muxuu ahaa sheegay mas-uuliyad saaran hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharciguba inay si wada jir uga shaqeeyaan. hadalka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Axmed Cali Daahir ayaa waxa uu imaanayaa xilli ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo lagu aruurinayo hubka sharci darrada loogu dhex wato magaalada Muqdisho.